galay baasti iyo bariis wadankeyga ma ku arki kari isla markii muufa xanaaqday muufa cadada qorigeyga aa ka halay soo bixiyay hadda qorigeyga lay soo bixiyay war muufa joog maya ورحمة الله وبركاته أصحاب halkaan ay daawanaysaan waa Muqdisho React Channel waxaana la joogo maanta Maxamuud محمود عبد القادر مومن ديريه maanta waxaana la joogo abwaanka oo u sameeyay heesta Dayaxdal Nuurshe Samsam waad xudunto dumarkeen caan baxay caalamka ku siidata abwaankaas maanta la joogo Muqdisho React maxaa leedahay والله مقدس رايكتي معناها وحنبليينايا حنبلي عاد وبلارنا وبحنايا مد لباد waxaan kaloo aan leeyahay like share comment subscribe inta macnaha bakaraam dhamaan waa xanbaliyeenaya inta waa nalga soo akartay inta kasto macnaha oo markaas oo u baahatan waa la socon kartaa ama dal ha naqata ama dibadda ha naqata ama xamar gudihiisa baa naqata meesha waana u soo gudbintooda meel kastana waa nagal soo xariin kartiin xanbaliyo waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan welcome with open hands this today aadaan idinku hambalyeynaya gacmo furan idinku soo dhaweynayna waqti walba aad noo baahataan waa idinku qosoleyna xagga shactirada hadaa rabtaan wax walba xataa leeman kale waxaan idinkugu haynaa in macnaha magaalada Muqdisho ay shalay sheeka ay imaadeen sheekadaas oo ah nin macnaha wuxuu siiyay 2,000 markuu siiyay wuxuu dhahay 1,000 ii soo celi warkunkii waa ku celi waa kana hadan kun kale igu soo daray haye kunkii kale waa ku soo daray ana waaba ku tuugsaday walaalo 2,000 ay siisatay 1,000 isii dhaadee maxaa way haye 1,000 isii war ninkii 2,000 asii 2,000 kale inta iska cishta labadiisa iska cishta asadeen waxa hadeen 2,000 kale hadeen aska sii qaatay waa hawshii ugu yaabka badneed xaaja baasta oo agteed aan ku arkay ayay ahayd bismillah اوكي waxaa igu xumay naagteedo markaas aan aroos xuseen aan ahay ayaa niman dhalinyaro ah intay imaadeen amisna waxay dhaheen naagtan adiga iska fur naag xumo waayo magaaladan adiga annaga kaaga soo hormarnay intaas ka shaqeynayna misna anigoo dirbi markiiba naagtii furay isla hadina 4 saac ilaa 5 saac inta u dhaxaysan naagtii niman oo markaas oo saaxiibadeyda ah ay iga aroosay taas ayaa igu dhufanayd wax kale lama socdo intaas ay igu dhufanayd bas ugu farxada badneed inta igu farxada badneed waxay ahayd maalintii wiilkayga Maxamed oo ii dhashay iyo igu naxdin badneed Maxamed hadana macnaha maalintuu iga dhigay oo bishan May ay ahayd saacaduna ay ahayd 8 subaxnimo 8 oo galabnimo adiga bisayariyaana joogaa oo tareebiyaano ayaad igeelaysaa sidii tariinkii camalaan u soo taraaraxne togdheerta waa ka soo tagnay tiiraanya ciilaan aragne iyo tabeeskeeda taraaja tuujay ku jirtaa dhaan xashaash badnaantaade nixoo lahaasta oo kale xashaashka badan ilaa xuweeraa tahaye xuweer ma taqaanaa maxaa lagu jeedaa xuweer af soomaaliga oo reer xamar weyne ku hadla waa fakiiraga laga wadaa waxaana macnaha waa u egtahay dadkaan cadcadka ah oo reer xamar weyne oo egtahay markaalahaas sidaas darteedaan ku malaynaya reer xamar weyne inaad tahay okay marka waxaa ku weydiinaa xaaskaaga meeqa xaasaa qabta horta aniga waxaan lahaa 4 xaas 4 xaas 1998 I have a 4 wife only I am very sorry this Muqdisho ma aysan ahayn waxay ahayd macnaha from Kismaayo 1998 I have a 4 wife I have a 3 children only 2 men 1 children hal wiil iyo 3 gabdhood ayaa waxay ahaayeen macnaha hal wiil ah iyo 2 gabdhood hadda maxaa ku jooga marka sorry I haven't any children without children I am sleeping this way
I have any children with our children. Sorry. Okay, marka waxaa maqlay dayaxdal nuursi qadarkeeyo yaa taageertaa dayaxdal nuursi qadarkeeyo aniga labadooda macnaha waxa waaye laba fanaan oo jirta waaye laakiin nin walba dooq buu leeyahay aadaan ugu xumaay dooqayga markaan kaaga hadlo macnaha oo taariikhiyan oo dooqayga aan kaaga hadlo waxaa ka mid tahay masaladeeda ama cimiladeeda ay ka mid tahay aniga waxaan taageersanahay dal nuursi waxaana aad aniga macnaha aan ugu taageeraa badanaa aniga sideedaba waxaan ahay naadiga Chelsea iyo Arsenal ayaan ka taageeri jiray khaasatan markii dambe waxaan taageeray Arsenalna waxaan u taageeray Afrikaan waaye aniguna waxaan ahay nin Afrikaan ah marka macnaha badanaa cadaanka maba taageeran sidaas darteed marka nin qadiyad leh oo waxaan ahay oo markaasi to Chelsea ah Arsenal waxa aan ku taageerayaa waxa ay dad Afrikaan ah waaye dadka Afrikaanka ah badanaa waa la liidaa sidaas darteed ayaan aniga Arsenal aan u taageeriyo aan Chelsea iyo macnaha Man United aan u taageeri waaye waa fahamtano taariikhiyan markaan kaaga hadlo khaasatan mid kale oo macnaha ay weydiisana maxay ahayd qadarkeeyo iyo dayaxdal nuursi badanaa waxaan taageeraa aniga dayaxdal nuursi waayo dayaxdal nuursi macnaha qofka markuu quraan yaqaan oo ku dhaho imtixaan aad ka qaadid subax khamiis markaa wax ka weydiisid oo aad dhahdid awalam yaraw ila tayri fawqahum saafaati wa yaqbilna ma yumsikuhunna illa arrahmaan innahu bikulli shay'in basiir intay ku jirtaa hadduu sheegi waayo muhammadur rasuulullaahi walladina macahu ashuddahu ala al-kuffari ruhmahu baynahum intay ku jirtaa hadduu sheegi waayo waa meelaha gaawana subax khamiis ah waay marka adiga aan caam iyo saluuni bari akaan ila yahuud ila baqra ala adid kama hadli kare marka meelaha yarku ka hadli waay marka ninkaas wuxuu yahay waad ma ogaatay markaas kor aan looga baxaa marka adigoo qofka aadan macnaha si tixraacan aadan ceebeynin arinkiisa hoos gudaha aadan u galin kor aan looga baxaaba arinka sidaas waay marka aniga qad badanaa dal nuursi waxaan ku jeclahay aan kaaga hadlayaa dal nuursi wax cadow la imaaday فيري دليش aan ku sameynaya waxay tahay xaq codka xitaa xaq codka markii la dhaha aniga dal nuursha macnaha ayaa ilo cod macaan dada hadda waxay leeyihiin fanaanka oo bariga bartamaha Afrika ma galaayo laakiin laba caalim is weydiinaysa 2 sano ama 3 sano hadda kadib inuu galaayo ciidaska baryaayana malahan codkiisa geenay in naqshada hadda uu ku socdaana geenaysa ninkii oo mucaarad ku noqdo iyo ninkii xaasad ku noqdo baasay u taalaa laakiin aniga macnaha qadarkeeyo dad baa taageer laakiin aniga taageerihiisa miyi waayo aniga waxaan jeclahay dadka codka macaan aynagan adduunyadan caashaq yaad u noqotaya samsam waad cudgoontaho dumar keena caan baxay waxaad ka fiirsanaysaa ninkaasito inuu nin ra'yi uu yahay oo nin oo macnaha oo qiimaysan uu yahay waa ninkii macnaha wadankiisa inta ka fikiray dadkiisa hooyo ka fikiray khaasatan hataa iskaba dhaafe gabadha wadankiisa horumar ka samaysay xitaa amaanay waaye waa nin aan wax la siisaleen qadarkeeyo ilaa ay hadda ma ka haysa adiga hees oo macnaha oo xay oo saas oo dalka hataa ka hadlaysa ma ka haysa ma ka haysid ya mar oo macnaha dadka oo Kenya show asku qabto macnaha oo heesaha muusiga iyo Afrikaan anaga Afrikaan oo macnaha oo muusiga oo meesha ku dheelaysa heesaha oo Soomaalida ah xay ah in la imaado laga rabaa aniga labada fanaan oo wadankayga aan ugu jeclahay aan ku sheegaa markaan ka soo tagno Xasan Aadan Samatar iyo Tuweec aan ka soo tagno labada kaliya aniga aan jeclahay waxay ka mid yihiin ninka la yiraahdo Cawaali iyo ninka soo labaynayna waxa waaye ninkan oo la dhahay dayaxdal nuurshe oo waliba xataa aan taageero weyn aan u ahay gabar aniga aan dhalay xitaa waa ku daraa hadaan u helay gabadh aniga ila laltay aan ku darayaa hadduu markaas doob uu yahay oo macnaha naag uusan qabin hadda naag uu qabaa taageeraha aan u ahayle darteeda heerka macnaha heestaas aniga ayaa sameeyey rasaalo ahaan ayaan ugu daray laakiin si weli xataa aniga hadda khaasatan waa bedelam haweenku cadceedlo cirkuna uu camirayo بليادو عقاقان يا عضل قرطا سمسمي كل عيارا عوذا كل كعاو علمي كان الدنيا ذان عاشاقيات ونخطايا سمسم وادعد قنته and every day this hobby قفل بهوبي أصليه أنا hobby ما أهان
macnaha qadar kenyo iyo araash banin la dhahayaba heesooda dadaa jecel aniga laakiin hobbigayga ma aan aniga cawaale heesaa cawaale aan jeclahayna waa kaaga hadlayaa ayaamaha ciisiga leh ilaaha dilbarkigi kuwa khayr ku caado waxyiga lagu calaameeyey maalin cara lahayn oo cad iyo baraf la caadaystay suwaxiida adiga dhashiyayo mal carafaadey ogow camal samaanta hablaha caaradeer tahay carshigay ku taala sidku caadil ku qoray haddii aad nasiibku calmada waa cawa ilaahay cabdiyoy udgoonteeda noqo laabta kugu qaban waa fahamtano ninkaas waxaa ku weydiiyaa qadarkiyo ma jiraa heesaa u samaysa maya hees kaloo aniga aan samaynin waa jirtaa the just life is pro for African people la dhahay jamalada adduunka jannado qurxoono jacaylku waa dhib badan yahay jannadu way ka daran tahay caliyow ha jeesanin jareer lacag leh baa tahay ma fahamtaade anigoo markaas dadkayga afrikaanka ah oo quwad gelinaya oo korna u qaadaya jamalada adduunka jannado qurxoono jacaylku waa dhib badan yahay jannadu way ka daran tahay caliyow ha jeesanin jareer lacag leh baa tahay inaa isliidiid ma ahan jareer lacag leh baa tahay ya ciddaa rabtaa aroos kartaa aad shukaansanaysaa hadday ku diidda gabadha kale aad ku qabsanaysaa ya haa waxaa ku weydiinaa marka xamraa imaatay waxa oo aad la kulanta aad kula yaab badnaa ya waxa iigu yaabka badnaa waxay ahayd marka xamar aan imaado ayaa waxaa iigu yaabka badnayd nin baa waraysi iila yeeshay misna asigoo waraysiga iila yeeshay ayaa ninkii wuxuu ii yidhaahday xaaladda aan ku sugunahay ma ka war haysaa maya xalay macnaha galeey ayaa baxday haye galeey maxaa waaye galeey macnaha tii la cunayo cambuulada ma waaye haa waaye intee aada farmaajo ay u tagtay waaye maxaa jira waaye farmaajo ayay adeeg u dirtay maxay farmaajo ay kala taa waaye waxay dhahda waaye galeey baasti iyo bariis waddankeyga ma ku arki kari isla markii muufaa xanaaqday muufu waxay dhahda qorigeyga aa ka halii soo bixiyey hadda qorigeyga halii soo bixiyey war muufu joog maya muufu qorigeeday soo baxsatay isla markii canjeer khayl ay bilowday waxay dhahda ciidanka dhan hala soo bixiyo xaalad xun iyadoo lagu sugan yahay oo xaalad ay xun tahay sooraa ka soo gaartay sooraa dib u haxlin samaysay arrintii heshiis oo balaarna meeshii ka dhacday waxaan ku leeyahay meeshii alxamdulilah xabadaa ka dhiciribta dhiigaa dhicirib ilaahay aaba khayr iyo fatxi iyo samsama meeshii keenaba ma fahamtaade arrinkaasna waa xasaas u xalii sooray ahayd marka hadda waxaan ogaanaynaa anaga xildhibaan waxaan u dooranaynaa ama wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda sooraan u dooranaynaa arrimaha gudaha waxaan ka dhigaynaa macnaha canjeero arrimaha dibaddana waxaan ka dhigaynaa muufo arrinka meeshaan ku xalinaynaa saasaan ku dhammaynaa arrinta